mas-uuliyiinta 10 xafiis oo xisbiga wadani ku lahaa magaalada Burco ayaa sheegay inay ka baxeen gabi ahaanba xisbigaasi wadani oo ay ku biireen xisbiga kulmiye waxaana mas-uuliyiintaasi sheegeen inay xisbiga wadani uga baxeen kadib markii xaafadahooda xisbigu rabshado ka geystay maalmihii ugu dambeeyay ee ololaha xisbigu u lahaa waxaana xafiisyada mas-uuliyiintoodu ay gabi ahaanba ka bedeleen astaantii xisbiga wadani iyagoo u bedelay astaanta xisbiga kulmiye Mustafa Faarax Qalab madaxa xiriirka dhalinyarada gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga kulmiye oo taageerayaasha la kulmay ayaa halka kala hadlay mas-uuliyiintaasi midaha xubno ka tirsan xisbiga wadani oo ku jiray dhowr qaybood aan kaga jiray xisbiga wadani ha noqoto kooxda wadani baan fanaaniinta ha noqoto xafiisyada aan ku leeyahay xaafada October ha noqoto gudida campaign-ka ololaha intaaba waxaan u sheegay xisbiga wadani inaan ka baxay oo ka diga rogtay xisbiga kulmiye oo isagu sababuu sheegay Cabdiraxmaan Cirro bedelo uu yiri laakiin halkan ma bedelo ka dhignay saaka darrad banaan bax bay u laayeen xaafadaha ay soo mareen xafiisyadoodii baa laga taageersanaa laga mid aha iyaga dhalinyaradii bariga magaalada Burco isku diray sabab awgeed sababahana waxa sameeyay iyagoo intay hawl dadka ka soo gurteen oo gawaadhidii waaweynana ay dhagaxan ka soo buuxsadeen oo qofkii iyagii salaamayay bay u soo dhaweynay ay dhagax ka horgeeyay magaalada Burco gaar ahaan xaafada October waxa aanu ka hadlaynaa waxa weeyaan in aanu ka soo wareegnay xisbiga wadani kadib markii aanu aragnay maxay tahay qodobo fara badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin daawac ama curyaamin xisbiga wadani uu ku hayo gobolka waxa way gaar ahaan xaafadan oo dhalinyaradii waxa way leeyahay kaadhadkii guba taana anagu kuma taageersan kumana raacayno waxaan ka soo digarognay markaan aragnay in codkayga leeysan anagu codkayga lacag siisan mayno waxaan siinaynaa codkayga ninkii u soo halgamay ee wadanka wax tari karay waxaan kaloo kaga baxay maalintii dhaweyto ay sameynayeen banaanbaxa ee qorraartahay dadkii u cayaarayay ee heeganka wahay wadooyinka u taagnaa xaafadayada horteeda iyagoo dhagaxaysatay tuuray oo shiiday oo dadkii hadda u cayaarayay bay shiiday astaanta xisbiga kulmiye ayaa halkaasi ka yidhi waxaan shacabka Soomaaliland u sheegay haddii uu xisbiga wadani ismacaashiyo bedeluu keenay in xafiisyadiisii ay bedeluu yihiin bedeluu xafiisyadiisii bedeluu guryihiisii bedeluu xafiisyadiisii bedeluu maxamed cali goodir telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada